Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ardayda ka tirsan channelka Maymay Academy fadlan dibsan dhawaada casharka maanta si hayna mayba ka mid 8 common English errors sideeda oo macnaha qaladaad dadka Ingiriiska marka ka hadlaan oo sameeyaan sideed qaladaad oo Ingiriiska ama luqadda Ingiriiska dadka marka koodaan oo sameeyaan marka qaladooyinkaas iyo maanta may rabna inaan iska saxno and with Madam Emma. Okay, marka casharka aan guda galno marka aan dhageysano waxay macnaha iyada in shawayta insha Allah ta'ala. I'm Rebecca from Ingvid. In this lesson, you'll have a chance to review 8 common English errors. marka casharooyinkan macnaha mayba fiiriyaan macnaha sideed qadarooyin oo macnaha luqad Ingiriiska marka koodaan oo sameeyaan qaladyaashaas ya fiiriyaan. Okay, So let's see how you do. marka aan fiirino qaladyaashaas oo macnaha luqad Ingiriiska dadka marka koodaan qaladyaasha oo iyo sameeyo. Okay, The first one. midda koowaad mayba ka mid qaladooyinkaas oo dadka sameeyaan. Today morning, I woke up late. Today morning morning hirabta today morning maanta hirabti I woke up late macnaha hundurmada ka daay iyo masakan I woke up late hundurmada ka daay. Okay, I woke up late iyo masakan marka today morning hirabtan I woke up late iyo masakane marka sentencing min qaldin. Okay, let's go. So, what's wrong with that? There is actually something wrong with each and every one of these. marka run ahaantii sentensiyaaka dhammaan ka aragoyta sheeyaal fara badan ayaa khaldiyaan marka aan fiirino. Tell you that in advance. There are no tricks here. Okay? So, what's wrong with that sentence? sentensiga may khaldin marka aan fiirino. Today morning, I woke up late. maanta hirabti durmada ka daay. Well, it should be. marka meelanku baahan yahay inaan macnaha sentensig ahaado sentensiga sax marka koodasa ina macnaha meelalkinku baahan yahay inaad dhato marka today morning today waa mid meeshii qaladka jir today way marka meelkinku baahan yahay ina oo ahaado today's qaladtoy marka meelinku baahan yahay ina ahaato This morning. this morning ina dalkinku baahan meelkinku baahan yahay ina dhato this morning I woke up late. This morning hirabtan I woke up late macnaha hundurmada ka daay. Okay, Okay, we don't say today morning. We say marka ma dhahano hirabti maanta ma dhahano maanta today maanta hirabti saas macnaha qalad way. This morning yalkan baahan ina dhato this morning. Number 2. What's the different? marka number lamaad maywa what is the different sentensiga different may ka qaldin marka sentensiga different wala qaldin what is the different. Okay, and fiirino marka What's the different? Well, that's wrong too. marka run ahaantii sentensiga hada qalad way marka usada qalad way Because different is an adjective. sababta different hadi dhato mewa adjective way. What you want to use here is the noun. meelkan baahan ina isticmaalto noun elkan baahan what is the different qalad way marka noun ina isticmaalto ya lekan baahan. Okay, marka aan fiirno noun siri aan qorimow. Let's go. marka qaladka mayba ka jira dhinayo different qalad. What is the different qalad marka saas ku dhato. Okay, marka aan fiirino So what's the noun? marka nounkas maywe marka nounkas si aan qorime what is the different noun she si aan qorime Of this word? marka
حرفت اسقالات way. Okay, now difference ما نقول Difference. difference. What's the difference? marka meelkan baahan inaad dhato what is the difference. What is the difference? Saaski erayada saxga taas way. What is the difference? Okay, aan fiirino marka hor aan socono. Okay, this is a really common error, so make sure marka tan may waa macnaha qaladooyinka oo dadka sameeyaan way marka you don't make this one. Next one. I met John 2 years before. Okay, I met John 2 years before. I met John 2 years before. Sentencing hadda qalad ka jira haddii aad fiirito marka and I met John 2 years before. marka aan fiirino qaladka meesha ka jira. Okay, let's go. Okay, what's wrong with that? Sentencing may Well, okay, over here. marka before We can't say I met John marka sentencing igasa qaladka ka jira igas way. I met John 2 years before. qaladka disaas dhato. Okay, 2 years before. We can say I met John 2 years ago. marka meelkan baahan yahay saxga may waa I met John. John may ila kulmay 2 years ago. lama sana hadda ka hor iyo ila kulmay marka I met John 2 years ago. marka 2 years before qalad way. I met John 2 years ago. mid saxga laakiin baahan inaad dhawaaqto waa taas. Let's go. All right. If you use the word before, haddii isticmaalto erayada before haddii isticmaalto then you have to say before something. marka meelkan baahan inaad dhato ka hor shay ka hor ina isticmaalto laakiin baahan marka. Okay, shaygaasna may kamid ay Before I graduated. marka before iyada ka bilaawdaas marka iyo ka bilaawd before I graduated inti ana macnaha ka hor ini ana inti aan dhalan jawina. Okay, before I got married. marka ka hor inti ana han guursana saas oo kale iya isticmaalasa sentence before laakiin wal oo hopeless dhaafi ago isticmaalas. Okay, Or whatever. But if you can't use before by itself. laakiin before kaliyantis macnaha ma isticmaal karto. So the proper word there is ago. erayada saxga igas lanku baahan yahay waa ago in isticmaalto ago. I met John 2 years ago. I met John 2 years ago. erayada sax lanku baahan yahay meesha ago. Okay, marka aan fiirno erayada kale. Let's go. Met John 2 years ago. Next one. This is a 6 months course. This is a 6 months course. This is a 6 months course. Okay, marka hadii la fasiro meesha meel ba qalad ka jir laakiin hadii la fasiro may waa this is a 6 month course may kan macnaha leh course oo 6 bilood way. course oo 6 bilood socda way marka this is a 6 months course. marka meesha qalad ka jir qaladka aan ka saarno. Let's go. That sounds almost okay. laakiin haddii fiirito sentensigan mayba macnaha limid ee ina macnaha sax kiili'ata. Okay, But it's not okay. laakiin igas macnaha sax laakiin sax ma ee meelba qalad ka jira. So the mistake here marka qaladka inta ka jirmay waa is with the S. laakiin When we use this marka isticmaalno macnaha x-kaas expression, it iyo marka haddii isticmaalno macnaha xaalahaas iyada xariigta maadaamta macnaha 6 months 6 months haddii isticmaalno 6 months haddii isticmaalno marka meelkan baahan inaad ka saarto x. Okay, becomes the entire expression becomes an adjective for the noun course. dhammaan macnaha may nagade macnaha adjective haddii isticmaalato magaaga course ka isticmaalato ma iska bedele adjective. Okay, So we should say this is a 6-month course. marka meelkan baahan yahay inaad dhato this is a 6-month course. This is a 6-month
course kan maywa macnaha course oo 6 bilood ay way marka. Okay, let's go. This is $1 million contract. marka kan maywa $1,000,000 oo contract oo shaga ay way marka kan maywa $1,000,000 oo shaga ay way. Okay, And so on. Okay? why limit? That's another. Each of these is a different element of grammar, different aspect of grammar. kan macnaha markii mid ee macnaha elemential oo macnaha ka saabsan grammarka iyo way grammarka la anku baahanyahay marka kaas way. Okay, And so on. Next, number 5. Thank you. I really enjoyed. number 5. Thank you, I really enjoyed. Thank you محسنت. I really enjoyed. آتي آدم معناها أنك فرحي مرك enjoyed or أنك راي يصير I really enjoyed آتي آدم أنك فرحي. Okay, thank you محسنت. I really enjoyed آتي آدم أنك فرحي. أما أنك راي يصير ذكرت مرك. Okay. Okay, مرك أن فيرينو thank you. I really enjoyed. مرك أن فيرينو ميرشي قالت ما كجر. What's wrong with that? ما قالتين مرك sentences. Well, مرك ندي فيريتو well بلا the problem is here. قالت كمي كجرة enjoyed انتوي قالت انت كجرة. Okay, Enjoyed is a reflexive verb. enjoyed ما is a reflexive verb way. So you would need to say, I really enjoyed ما مرك ما لكن باهي إن أتو I really enjoyed. Okay, myself. I really enjoyed myself. I really enjoyed myself. It's a reflexive معنى reflexive يعني أنت معنى ما أنت I really enjoyed إيش معنى ما بك دمية myself. Okay, I really enjoyed myself. Thank you محسنت. I really enjoyed myself. Okay, مركا أنا كراعي سيري أنا حانتي أنا نفتدي كراعي سيري. Okay, مركا ويش ويكو مغناي مايوا myself. Let's go. He enjoyed himself. She enjoyed. He enjoyed himself أوسجا أنتس معنا راعي سيري. She enjoyed herself إيادا باشا يا راعي ستي نفت عانتي. Okay, let's go. Herself. We enjoyed ourselves. مركز They enjoyed themselves. Okay. Okay? مركا ساصل الاستعمال they enjoy them they enjoy themselves he enjoys themselves we enjoy themselves she enjoys themselves. Okay, So there are certain reflexive verbs in English and we need to use them correctly. مركا reflexive verb كمان ربعهن اللغة الإنجليزية إن الصح جاي إن الاستعماله that is متاس making it myself. Okay, That's one of them. Very common one. that is what معناها حل إيو معنى reflexive verb كلمة إيه معناه myself. Okay, Okay, number 6. Did you lose your cell phone? okay, number 6 number كل حد did you lose your cell phone. Did you lose your cell phone. مرك sentence أهم هذه فيرتو and معنى شيء ما يبلك وذا did you lose your cell phone مبلكا كين كدومي. Okay, مبلكا كين كدومي مرك قالت ما إجس كجر أن فيرنو. What's wrong with that? I helped you a little bit by actually showing you where the error is. مركا making كعبيو إنك تسوي ميشة معناها قلدوين كجرة مركا ميش قلد كجر ميوا lose. Okay, So, many people make this error. مركا دد بدن إيا معناها قلد ياشن سميويون This is actually a spelling mistake. كان معناها رون أحانتي ميوا أن قلد يالشو أو هنقادوي. You should be spelling the word this way. مركا ملكن كباهي إنا معناها أن هنقادتو أن حرفد سيزن. Did you lose your cell phone? Did you lose your cell phone. ساسو معناها ميدي أو صح جاي استعمالته وتاس. Loose is an adjective which means not
tight. loose maywa adjective way macnisho maywa macnaha wal oo okay, wal oo hanhirinayna marka wal oo hanhirinayn way loose adjective way wal oo hanhirinayn ama wal oo handhuujisnayn dheh loose wal oo handhuujisnayn okay. And lose is the opposite of find. Okay? marka loose kana maywa macnaha kusmay kusoo horjeede find aragtiya kusoo horjeede macnaha loose wal dhumi way loose wal dhumi may kusoo horjeede macnaha find aragti okay. Did you lose your cell phone? Also the pronunciation hadda macnaha dhawaaga ama ka dhawaago ereyada is lose and not maywa loose way marka mee loose. loose mee marka okay. loose hadda dhato wal oo fiican hanhirinayn way loose midaan oo qaladka fuul marka loose maywa mid oo wal oo dhumi okay. Next one. This is an academic course. This is an academic course. This is an academic course. Kan maywa course oo wal barishi ay way mana course oo wal barishi ay way okay. This is an academic course. So what was wrong with what I said there? marka way Okay. ayagas ka dhahay mega qaldan way ayadas oo ayagas ka qorinta ama an ka dhawaagi mega qaldan. So what was wrong was my pronunciation of that. So many people mispronounce this word. marka dad badan macnaha erayadan macnaha si qalad iyo an ka dhawaagoan si qalad iyo an ka dhawaagoan erayadan oo academic okay. It is not academic. it is macnaha ma academic ma okay. It is academic. maywa it is academic way academic The stress is on the middle. stress kuma full dan dem iga sa full stress ka jitmanka mana stress kuma jitmanta ama stress qayjiska meesha sa full okay. Academic. academic This is an academic course. This is an academic program. Okay? marka and this is an academic course marka qaladka mayba ka jira meeshas and qalad meesha mayna ka jira sababta ka jirna may dhawaag way pronunciation dhawaag xiga ka dhawaag marka academic hadato marka and still macna usul leeyahay laakiin dibku may waa stress ina macna kasto qayjito arafka academic ina tolikan ka baahan marka okay. So if, in case you make that mistake, I'm not saying you do, in case you do, marka aan mudooyo macnaha hadii macna qaljaasha sameeyo and areas qalatay laakiin hadii la dhawaag macna aan sameeyo waa qas make sure you correct it. laakiin Last one. amalkan baahan ina macnaha iska saxto mid inka dambeys last one. Yes, I have a free time. Yes, I have a free time. Yes, I have a free time. marka sentence-ga hadii fiirto sax way nila saxay un dhaa macnaha nila saxay laakiin qalad ba ka jira marka okay the way we use qalad way marka qaladka ka jir igas may way. Is that what's wrong there? What's going on? Okay. may qaldan meeshas okay hadii fiirino Okay, here. okay We don't need way meeshas qaladkan ka jira marka malninka baahanyo uno malninka baahanyo ina to say free time. We need to say free time. marka baahan dhano eedas in isticmaalno malninka baahan yes I have free time mid saxga may waa yes I have free time waqti oo sax ayaa leh waqti oo I have free time waqti oo macnaha fursad yes I have free time fursad leh yes I have free time fursad leh ama fursad qaw okay mid saxga taas way Because this isn't, time is an uncountable. marka time in time maywa
ومعنا وقت أو حالين حساب كراين وي ولا حالين حساب كراين uncountable noun. Now, each one of these examples tusaalayaashan dhammaan represents a different aspect of grammar. may macnaha اللي macnaha tusaalayaana macnaha noocayaasha macnaha oo luqadda grammarka. So how can you possibly learn all of them? Se macnaha barid karta dhammaantiyo. Well, I'll give you two easy ways marka may ka siya lama wado oo macnaha fudaad to help you out. macnaha adig ku barato. One is to go to our website, ti koowaad mayo macnaha ina browse gareeto website www.ingvid.com. marka www.ingvid.com iya ku barid karteen. Because there we have currently, I think, more than 700 lessons on different aspects of English grammar. egas macnaha may jireenas wal oo macnaha ku badanyan 700 ashar egasna macnaha si fudaad aan ku barid karteen. kay markii jireen grammar ayaa ka jira English grammar kala nooyin ama kala duwan ayaa ka jira. And of English in general, for exams, for writing, speaking, all kinds. Exam ka jira qoraal ka jira exam oo qoraal exam oo English marka far badan things. And by watching them, you can find the lessons that you actually need. marka adiga marka fiirsato marka may ka aragagaas casharooyinka aad ku baahinta inaad ku barito meesha. And the other thing is that we also have, I've written actually a resource which might help you, which shows 50 such common errors. marka may ka jiraan macnaha resources ay ka jiraan macnaha oo Ingiriiska ku baraa si fudaad. marka maanta casharkan halaasoo koobinay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.